Somaliland waxaa ka socda hirdan xoogan oo loogu jiro doorashada shirgudoonka golaha cusub ee dhawaan la doortay ee wakiilada Somaliland 82 mudane ee golahaasi ka kooban yahay ee lagu doortay doorashadii 31 May dalka ka qabsantay ayaa la filayaa inay maalinta bari ah oo Salaaso ah fadhigoodii kuwaad fadhiistaan isla markaana ay halkaas ku doortaan gudoomiyaha iyo labada gudoomiye ku xigeen ee golahaasi hogaamin doona. Haddaba warbixintan waxaanu dib ugu milicsan doonaa tirada gudoomiyaashii soo maray golaha wakiilada Somaliland tan iyo markii golahaasi la dhisay iyada oo ay dadku u dhegtaagayaan maalinta bariya gudoomiyaha markaasi xigi doona gudoomiyaha hadda xilka ka degay ee Baashe Maxamed Faarax iyo labadiisa ku xigeen xubnaha xigi doona ee xilalka kala wareegi doona. Haddaba golaha wakiilada Somaliland 1991 waxa gudoomiye ka noqday Allaha u naxariistay Ibraahim Megaag Samatar oo ka mid ahaa aqoonyahankii dalka u soo halgamay waxaanu xilkaasi hayay ilaa 1993 waxaa ku xigay Axmed Cabdi Xaabsade oo isaguna xilkaasi qabtay sanadkii 1993 isaga oo markaasi hayay ilaa sanadkii 1995 waxaa isaguna Axmed Cabdi Xaabsade xilkaasi kala wareegay oo ku xigay Allaha u naxariistay Cabdiraxmaan Xuseen Beedani oo xilkaasi hayay sanadkii 1995 ilaa 1997 waxaa isagana ku sii xigay Allaha u naxariistay Axmed Aadan Qaybe oo xilkaasi qabtay sanadkii 1997 hayayna ilaa 2005 Allaha u naxariistay Axmed Aadan Qaybe waxaa isagana xilkaasi kala wareegay gudoomiyaha xisbiga wadani ee hadda Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo xilkaasi qabtay sanadkii 2005 hayayna ilaa 2017 waxaana Cabdiraxmaan Ciro xilkaasi kala wareegay waa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Baashe Maxamed Faarax oo xilkaasi hayay 2017 ilaa 2021 dhinaca kale golaha maalinta bariya fadhiisanaya ee dooranaya shirgudoonka isla markaana lagu doortay doorashadii dalka ka qabsantay 31 May waxa ay noqonayaan golihii saddexaad ee wakiil ah ee Somaliland laga doorto iyada oo ay sidoo kale noqonayaan golihii labaad ee si dimuqraadi ah oo hal qof iyo hal cod ah ay shacabku u soo doortaan. Maalinta bariya ayaa loo dhegtaagayaa fadhiga golaha wakiilada iyo weliba natiijada ka soo baxda ee doorashada shirgudoonka golahaasi iyadoo ay dhinaca kalena socdaan ilaa imika loolanka u dhaxeeya asxaabta mucaaradka ah oo isbahays samaystay iyo weliba xisbiga kulmiye oo markaasi xildhibaano ka tirsan dhinaca mucaaradku ay la safan yihiin kuwaasi oo ku hirdamaya hanashada kuraasta shirgudoonka golahaasi.